دور دقيقة كور لكن سيدا كلا إن جنرال واسكو فرينها جدك بلدوين يقولوا برتو بقولك بقول واسكو فرينها وعنقولي وتلياشة مع الوسيد اللي نكمله أوكي وعنقود وكودي بيا برايم سركة وكان برايم زر حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلي وانك السلام يا سكورن سيبتاي. الحمد لله ريد الزروات في عنها إلى أن نقول ذلك. waan fiicannahay walaalow annaguna runtii waa marka koowaad waa idin mahad celinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahad celinayaa dadaalka aad samayseen iyo geesinimadiina iyo sida aad wadankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysan waad ku mahadsantihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen Soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aad mudan tihiin waana la idinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aad iyo aad mahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dawladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa inagoo iswadana hadii Ilaahay yiraahdo oo wada shaqeynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaas adiga gaarsiin waad igu salaami waan idin garab taaganahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag halala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinka difaacaya cadawgana waad ka difaacaysiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idin ballan qaaday inaan idin garab taaganahay waan idin wada imaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhamaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa Ilaahay idinkiis waa maasanta raiisul wasaare hal mid ayaa ka codsanaya meel walba horta waa la xuleeyey markaana aad u cabsi badan oo dabada looga jiro aniga jihaadaan nahay waxaan ka codsanayaa in meelaha la qabtay dadka dad masaakiin ah joogo oo gargaar la soo gaaro intaas horta ka codsanaya qorshaha dawladdu waxa weeye in degmo kasta iyo tuulo kasta la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station police-kii iyo maamulkii oo isku xiran iyo hadii ay dib u heshiisiin deegaanka u baahan yahay in ayadana loo dhameystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay'adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana hadeertaana la fadhiyay dhowr daqiiqo ka hor oo aan arinta dhamaysanay waa diyaar amniga mar hadii la sugo waxa ku xigay waxa weeye waa in shaqadaas la qabo dawladda u taala annaga iyo Hirshabeelle iska kaashanayna dawladda way ka go'an tahay waana ka shaqeynayna Ilaahay idinkiis taas waana lagu ogyahay hadii Ilaahay raawo shaqadan aad baad u mahadsantahay ما شاء الله رئيس الوزراء مع سنتهاي أنا ما أرتيش أقوى همبليننا أنا قلنا إن تاجرتها إن أمر لما كي المتوقع أكيد جوا كذا وهو أنا تاريخ ده نقول برضه وهو إنه كاسبينا بدي ذكره تذكر مساكين تا أو طعن تذكر اللي بانك تذكر لما ده حبيب جالسين عارفنا إن ما أرتيش تذكر وسيقول متقدر أدو شو جالسين الدنيا غير وكل ذلك أنا تيجي نفسي أنا ما ورني waa annagana waa huraynaa Ilaahay idinkiis hay'adda maareynta musiibooyinkana waa gaarsiinaynaa cuntooyin baa la soo gaarsiin doonaa insha Allah horeyna waxba loo gaarsiiyay haddana waa la soo gaarsiinayaa hawshaas waa ka shaqeynaynaa idina hawshiina qof walba meeshiisa aan laga soo dhicin annagana meeshana naga soo dhici maayo hadii Ilaahay aad baad u mahadsantihiin guulna waa idin rajaynayaa igu salaama dhammaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee jihaadka ku jira igu salaamo ما شاء الله ما سنت أخو سلامي ما سنت هذا الجزار ما سنت رزار وما سنت هاي operation كان هرت حلم باللوني هذه ساك ساعات الصبح باللودي دول إلى 7 كيلومتر جارة يدرك كيس اللي عن كهول قلنا إلى 7 ميلود عن كويرناي وحن كبلوني جيس كمل يراهدو الساق شروف اللي يراهدو وعدد كبير كوادن 2 كيلومتر جرت ماشى إذا ماذا كسرين waxay ciidamadaas u tageen meel ay deganaayeen oo dacwo qoran la yiraahdo oo ahayd meel hawda oo beegaga ay u xiraayeen oo ciidamadooda ay deganaayeen ayaad u deganaayeen meeshaasna waa ka saarnay kadibna ciidamo kale oo baxda toos uga baxay ayaa waxay tageen deegaan la yiraahdo Dhuumoodle oo ah meel gudaha weyn oo buur hoosteeda oo ayadana ay ku gamban jireen qalabka isgaarsiinta oo dhulkaan oo dhan ay isticmaali jireen oo ku yaalay iyadana waa ka carar waa gartay haddana waxaan rabnaa insha Allah taala markii hadda maaragtay hawlahan aan dhamaysanay inaan qayb meel yiraahdo oo maxkamadda ugu weyn oo labadan gobol dadka ay maaragtay ku xukumi jireen ah inaan wajahno hadii Ilaahay yiraahdo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calaykum salaam guddoomiye waan ku salaamay iska waran see tahay aad iyo aad alxamdulilah waan kaa qaaday aad baan u fiicannaa ra-iisul wasaare boqolkiiba boqol alxamdulilah. degmo baxdo la yidhaahdo oo geesinimo ku caanbaxday oo runtii soomaaliya u horseeday inay guulaysato ayaad guddoomiye ka tahay marka adiguna geesi baa tahay mar hadba haddaad guddoomiye ka tahay haddana aad safka hore ku jirto waan ku hambalyeynayaa number one horta dee waxaa weye waa mujaahidiin jihaad baad ku jirtaan dhammaantiin allah idinka aqbalo amiin amiin. number two waxaan rabaa inaan aan ballan qaado dowladda soomaaliyeed waa idinla jirtaa garabkiinay taagan tahay dhinaciinay taagan tahay waa ka go-an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka lagaga xoreeyo oo diinta ay kharibeen lagaga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro ummadda soomaaliyeed laga xoreeyo dowladda waa ka go-an tahay waana idin garab taagannahay maasha allah aad iyo aad waad ku mahadsan tihiin naftiina aad huraysaan xoolihiina aad huraysaan shacabka soomaaliyeedna dhammaantiis idinka uu idin fiirinayaa waana idin daba socdaa waa idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay soomaaliya guul baa usoo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol bay inooga dhimanayeen laakiin inagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseed baad ka tihiin waxaana rajaynayaa ilaahay idankiis in soomaaliya si deg dega looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin caddeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir alcadaala waa idinla joogaa kuwo kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilahay idankiis haddii ilahay yihahdo xildhibaan saabirna uu nala joogaa ra-iisul wasaare aad iyo aad aad umahadsan tahay allah ku sharfo runtii inagu dee waxaanu isku xilqaanay inaan maaragtay cadowgaas soo jireenka xukuumaadka ummadda soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna haddii maanta dowladdii soomaaliya ra-iisul wasaarihii waqadka noogu jiro uu ballanqaad noo sameeyeyna aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa haddii aan wax yara dib ugu laabanno deegaamo fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyey ilaaha ku mahadsan ilaa iyo 10 tuulaa saaka la maray oo la xoreeyey marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dowladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyaddooda aad bay u wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin inay maanta la dagaalamaan khawaarijtaas waxay ku faraxsan yihiin in dowladdii soomaaliya oo wasiiradii iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hogaaminayaan marka insha allah moraalka iyo ummaddu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xildhibaan saabir ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo taageerada iyo maxaan ku idhaahdaa shaqada adag oo dowladdu ay halkaan runtiida ka wado annaguna haddii ilaahayd waan gelin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah oo aan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu guddoomiyuhu kuu sheego weeye insha allahu tacaala waxa dhimanna waa soo afjari doonaa biidni illahi alkariim